ايه. horta waan salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaalo aniga horta qofka bini'aadanka horta inuu ilaahay ka cabsadaa wanaagsan ma garan صح xaqiiqana siduu wax ogyahay inuu sheego. صح. gabadhaas 11 midiyood baa ku yaalay qowrac baa ku jira jirdil baa ku jira saxaaxa xitaa waxay ka gelisay bardabka intay gelisay ma garan صح صح قال meel aan ragga u sheegi karna ma aniga diinta اي برايفت بارتي صح. لا حول ولا قوة الا بالله. ani 25 sano aan dhaqay dhacda iga xanuun badan ima soo marin gabadha yar isku dugsi baan ahaan jiray waagi hore eedadeed baa haysan jirtay يدد هيسن جرتي غورمي هيد marka. baad reerkan wax dilay waxay ku maqan tahay bil iyo bar هي eedadeeda haysata gabadha rajiya agoon bay ahayd ayay aabana ma lahayn ayay hooyana ma lahayn هي ilmaha markuusan waalid lahayn hooyo la'aantu waa rajada koowaad ma garan واقرت وين in هو hooyadii waayo baa garanaya هي eedada iyadoo la joogta odayga eedadeed oday la dhashay baa maalmaha ka mid iyo naagtaa u yimiday waxay dhaheen gabadha hana la siiyo dhowr cishaan haysanayna waan kuu soo celinaynaa هي maamadu way diiday gabadhii way kaxaysatay markii dambe odaygaa kaxeeyey gabadhii واقرت markii la kaxeeyey maamada qaali baa la yidhaha waxay tiri gabadhayda hala ii soo celiyo هي awal baa anaa korsaday haddana hala ii soo celiyo واقرت naagtii baa been sheegto waxay tiri gabadhan guriga qaali baa lagu kufsan jiray naagta beenta sheegaysa waatee waa naagtii dilaaga ahayd dad qalatadii laa xawla walaa quwwata illaa billah waa dhagdeerto qaali waxay tiri waxaa ku qancaa kitaabka ilaahay iyo dhakhtar qaraca dhagacda la yidhaha GMC GMC ogaalka ay ku yaala dhakhtarkii markaan geynay waxa la gabadhan lamana taaban dambi amaha dambigana rajay agoonka ana dambi in laga galo maaha dhakhtarkii naagtii buu la diriray naagtii markuu la diray ninkeedii oo naagta u weexanay oo nin weyn oo naagta iyo difaacay oo dhakhtarkii kale gabadhii wuu ka haystay odaygii dulmiila kaas isna annagoo gaarigii soo wada raacnay aniga qaali oo soo soconna ayaa gaarigii odayga nooga deg buu dhahay aniga naga deg buu dhahay waa ka degnay adii qaali iyo gabadhii gabadh kale noola socotay markaas waxa isaga la socdo saabiriin iyo hodan iyo isagii iyo adiga iyo gabadha kale iyo gabar kale waa ka degnay marka waxay tiri qaali haddaad aniga xitaa ii diiday gabadhayda najmaha loo geeyo najma gabar la yidhaha iyadoo ay dhashay okay dadka aan yara la socon qaali waxa weeye gabar hore ay la joogtay oo soo korsatay oo eedadeed ahayd ee saabiriin way qaali magac qaali ah ogaada teeda kale shaashada oo inta ka daaya talabaad kale gabadhaas dugsiga 2 jeer bay quraanka ka naqtintay aniga dugsiga waa isla dhigan jiray saabiriin gabadhayda kale ahayd mar saddexaadkii naqtinkii kale u socday luna sir shalay meed iga yaab badan weliga yaalaa imaana لا حول ولا قوة إلا بالله صبر إيمان نسيد منطق رنجرو بريت دبك لقليه هذنا لا من دياي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب عرورتا رجدا هلا إلى لي يا قوم ما قلنا يا الله ربك هو يلا أنتوا دباتو هذا هو يلا هذا دب مكارن صح صح صابرين مركا وادو المنطقة عدالة إلهي ربطا قفكي قفتي الدين الإسلام كاين لو قصاصي قبطها مقرن نفسه بالنفس صح haddii naag horena ormaana way dishay gaalkacyo ay gubtay baan hadda ka hor xitaa wax ka dhayi jiray isbitaalka gabar hore orma ahayd hay oo marka isku dhagtay xitaa isku bogsatay haya oo shariid ku gubtay naagtan waa dilaa bulshada dhan baa ku dayanaysa haddii maanta tan lagu daayo gabdhaha reer midug waa isla naagtan baa gubtay gabadhaasna hodan baa la yidhaah hodan waa garanaya hodan haye hodan maxamuud diiri al dhahaa gabadha ninkana waxaa la yidhaahdaa cabdicasiis nuur xaashi baa la yidhaahdaa walaalo gabadhaas waa durmanta عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو عسبي ولاشين رومي جنال وإن لا البيت بيتكم البنت بنتكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا أفضل صلاة والسلام. سوري هذا مير والبعدون كتكجوكتا وين سوري وين يا سوري هذا إلا أنا وإني في عنو عافمات قبا إن يمكن وحا إني رجينا يا إن عافمات قبتنا ولدنتي إنك يا قوي سكينة فيديو soo dhageysateen waa maamadii gabadha meedkeeda dhaxday waxa igu soo cusboonaaday oo aan raba inaan ku darahba inaan inii sheego waayo commentayaal badan oo waxa jiro ilaa Isaaka soo qoraysan xalay sababtay ku dishay maxay tahay oo maxay u dishay oo maxaa jira oo maxay isku yihiin ma eeday u tahay update kaas oo dhan baa raba inaan inaga dabageeyo soo dhawaada gabdhaha igu cusub special waxa aan leeyahay ku soo dhawaada channelka waa channelka hooyada iyo dhalaanka hooyada iyo maxaan ku raahdaa ubadkeeda hooyada iyo maxaa u roon inta ugu badana hooyada waxaan ka hadalnaa dhaqaalaheeda si wax u dhigan lahayd si wax u maareysan lahayd iyo siday dhaxda u xiran lahayd baan ka hadalnaa laakiin haddii
uu brogaraamkeena uu ka filan waayo hooyo iyo ilmo yarba waa ku jirnaa waa kasoo hadlaynaa waana codkeenana meel fog baan gaarsiinay hadduu ilaaha idmo laakiinse brogaraamkan ugu badannaha aan soo dayno brogaraamka dhaqaalaha kusoo dhawow janaalkan ku leeyahay meel lagaa jecel yaha timid welcome aan ku leenahay ismartiyeenin janaalka subscribe ka saar saa noola socotay gambaleelka furo leegare asxaabtaada usii sheergare waxaa jirto wararku way soo baxayaan war baa kasoo baxaya waxaa jiroo kale fideoyaal ee duubtay oo gabadh yarta ay ku abuusaysay in maaragtay hadda la helay waxaa kaloo jiro naagtan gabadh yartaa dishay horta waa la hayaa dembigeedana waa ay qiratay waxa ayna sheegtay inay iyadu dishay naagtu waa naag indha adag baa la yiri waa naag waxaa la yiri il baqatao ma laha waa naag waxaad moodaa baa la yiri inay cirka saa u maraysato inayba dadka la nool iyo kuwa dariskeeda ah iyo kuwa ay taqaana waxaa la yiri saas u dul maraysaa baa la yiri horta naagtu waa midda koowaad kibirkuna ma fiicna qof bini aadana addoon adigoo ah oo saxaroonaya oo kaadinaya oo musqusha gelaya oo addoon ah oo daciif ah war maanta haddaad xanuunsan tahay aad dhulka yacni aada kor u kici karin awood ma lihid awood aad ku fahantan male awood ilaahay baa iskale gabadha yarta horta naagtan kommentiyaal badan oo iisoo qorayseen baan arkay oo aad lahaydeen maxay isku yihiin maxay u tahay maxay sababta ku dishay maxay tahay maxaa isku keenay waxaas oo dhan baa in rabaa inaan inaga dabageeyo waayo dad dhowaan u ah oo u dhow ayaa maaragtay aan la xiriiray waxaa jirto horta gabadhan iyo naagtu waxba iskuma aha eeday u tahay iyo kanay u tahay wax ay u tahay ma jirto ninka naagta qabana waxay isku yihiin ma jirto qaraabo fog hooyadeed baa liidi gabadha hooyadeed miyuu afti u ahaa mise adeer u ahaa gabadhan awoowe qaraabo ahaan ah buu yahay horta taa horta iga dhegaysta gabadh yarta ayay hooyo dhashan uma noola ayay aabo dhasha uma noola aabo uma noola hooyana uma noola afartii ruux oo afarta garbood ahaa oo haddii ayay aabo weyda ayay hooyo aadi lahayd ayay hooyo haddii aydan ayay maxaan ku rahdaa aabahey aadi lahayd hadday hooyad dhimato aabaheed meel ku ogaan lahaa hadduu aabaheed dhintan hooyadeed haysan lahayd intiiba god bay galan waa ilaah baa ka hormariyey waxaan waa qadar weeyaan waa qadar iyadan waxaa loogu talagalay inay ka dambayso oo iyadoo aan maxaan ku rahdaa qaan gaarin oo adduunka quruxdiisa markay saa usoo baxday in laga qariyo oo ay sabab u noqoto naagtaas ay la joogtay waxaa gabadha haysataa la yiri markaa maamo kale haysatay oo gabadha dhimatay mi eedee u ahayd mise habarar bay u ahayd bay haysatay gabadhan baa la yiri oo ninka naagta gabadha dishayna ay qaraabo yihiin ayaa hayse baa la yiri ninkan gabadha gurigiisa lagu dilay ayay qaraabo yihiin naagtu waxaad shaqo isku leeyihiin ma jirto islaantii haysatay buu kasoo kaxaystay baa isaa gacantiisa uga soo kaxaystay waxaa layiri gabadho 2 jeer bay taqan ee quraanku dhameysay baa layiri markii saddexaad baa hadda u socday markii horena meel baa la wada degnaayo meel fog lama kala degnayn waxaa layiri naagtan odageedii baa soo kaxeeyay gabadh yarta guriga uu keenay waxayba sheeko ku bilowday gabadh yarta waa gabar yaroo maxaan ku raad horaa loo soo kufsaday waa waxbay taqaanaa ciyaal suuqad weey waa kan dil bay ku bilowday almuhiim islaantii gabadha markii hore haysatay oo ninkii bay hadashay waa layiri niyo gabadhan waxay tahay anaa ku raba anay gabadheedii tahay gurigaanay ku kortay gabadha 2 jeer bay quraanka dhameysay gabadheedii ii soo celiya qaar inay wan soo socdeen ninkii iyo naagtii waa isku kaceen baa layiri naagtan way guriga joogto ninka uu qabo waxaa layiri meesha dalqad baa ku dhacday buuqi iyo qayladii gabadhan lama kaxeenayo iyo waa la kaxeenaya iyo lama kaxeenayo gabadhan marka naagta hadda ay dilayso 5 bilood ilaa 2 bilood inta u dhaxaysay la joogtaa wax badan lama joogto gabaray soo korsatay ma ahan gabaray hore u haysatay ma aha waa gabar ay haysatay muddo yaroo koombe gabadhan la nooleedo la joogtaa liir warkay miina dhacay mi faanteen warkayga ma ahan gabaray hore u sii korsatay deed waxaa la yiri gabadha yareed markii buuqi iyo qayladii intuu socday waaba tan gabadha yareed ay keeni weyday show gabadha yarta way dishaa wixii markii hore u geyn weydana oo u diid inay gelisana waxa weeyaan tacadiga ay ku sameysay iyo dhaawacyada jirkeeda ku yaala in loo qabsaday diidaysay waxa isreed marka 2 mid ama kow ka siiyo ha dhimato gabadha yarta ama dhaawacyada markay u bogsadaan u celi islaantii ay haysatay laakiin may noqonino qadartiba intaa ku ekada gabadha waa tan nabarka weyn maskaxda kaga dhufatay nabarka ay gabadha u dhimanaysana waa nabarka maskaxda looga dhuftay iyo birtan kulul oo bir kululba inta dabka la geliyay mindi ma ahani adigu waa wax bir oo kulul baa la yiri bay waxay ka gelisay dhinacii hoose waa iska fahmaysaan allahumma najayna
waxaa marka taas iiga sii daran horta gabadha xaaladeeda waa saas naagtan gabadha dishay iyo gabadhu wax shaqay isku leeyihiin ma jirtaa layiri arxan intaa leegna uma haysaa layiri way u shaqaynaysay maxaan kula guriga u nadiifinaysay caruurtay la haysay waka waa mid kale oo naagti waxaa layiri gabdho badan oo kala ku maqan kiisaska hadda dawladdu maxaan ku raada booliisku waxay samaynaysaa baa layiri gurigi baa la baaraya guri fiilaayo weyn bay degan yihiin gurigi baa la baaraya in meedad kale ay ku jiraan oo gabdho kale meesha lagu dilo lagu aasi baa layiri maxaa taas looga shakisan yahay waa gabadhii labaad oo hadda la ogaado oo dhacdadan ku dhacday gabadhan gabar ka horeysay oo oramo ahaydna saliid iyo biyo kulul waxaan loo kala garanayn bay ku shubtay inkastoo saliid lagu yiri saliid kulul bay ku shubtay oo isbitaalka oo la dhayay reerkii gabadha dhan lacag baa la siiyey ninkii baa lacagti siiyey magtii u baxshay gabadha oramada ahayd sidii baa lagu kala aamusay naagta mujrimada ahna ninkan guriga sidii ugu joogtaa waxaa marka jirto naagaha Soomaaliyeed ma fahmaan aqligaasna ma yeeshaan stresska number 1 waxa uu ka yahay horta awlaada badan oo la dhalayo stress waay intaad dhali kartid oo kurin kartid dhal waxa la yiri ama saddex bay u dhashaa sanadkii ama laba u dhashaa ama hal bay u dhashaa baa la yiri caruurteedu waxa 13 waa gaarayaan baa la yiri inta u joogta waxa lagu yiri 24 hours waa busy maskaxdeedii waa buuxsantay kan baa kacaya kana mataan ah kan baa kan ah waxa la caruurta xataa kuweeda ma disho waxa la qaylada waxa ay tuurayso waxa ay ku jirto stresska buuqa ma malin karsa ninka waxa la iskoobe orday bam dig xataa ninka waa dilaysaa baa liir naagtu waa naag waalin baa liir naagtu naag caafimaad qabta maaha waxa kale oo soo gaartay horta midaas waay awlaada tirada badan haddii aad xamili karin oo dadka ilmahoodii aasaa u laynaysaan u dilaysaan walaal 5 iyo 6 iyo 7 iyo dhaaf siirsanina gabadha ugu badan 8 ha dhasho bas ha korsato 8 ha korsato ama wixii ka sii yar korsada laakiin dhowr iyo 10 maskaxdii baad adigin waa kaas hadda 13 ka caruur ahana magac xumay u keentay hooyood waa mujrimad iyadiina mujrimad bay noqotay dhiig bini aadan bay gashay mid kale waxa la yiri kibirka ku jira la yiri gabadhaas gabadheeda dishay kibirka ku jira la yiri sankaasi ka hadlaysa maxaa keenay waxa lagu yiri 9 wiil bay dhashay maadaama 9 wiil ay dhashay waxay aaminsan tahay dadka oo dhanba inay u sareyso qabiilkiba inay badisay ee ka dhalatay ee ninku uu ka dhashay inay qabiil dhanba guriga u joogo ilaa gabdhaheena Soomaaliyeed waxa naga dhacsan ninka hadaad wiil u dhashid ya adigaaba lehba qabiilkii dhanba madaxa ku saaranaya marka waxay hadda u qiratay oo ay og tahay baa la yiri inaan mid lagu sameeyeen dadku waxa la mudaharaadaya dadka qaylinaya dadka la naagta hala dilo naagta waxaas wax ka jiro ma jiraan la yiri hadda la soo deynaya hadda dhaxda loo xiranayo la soo deynaya baa la yiri maadaama waxayna family ay iska yihiin laakiin dad shaqo isku leh gabadhan iyo islaantan iyo gabadhan ma ahan dad is yaqaaniyo maxaan ku raahdaa arxan iskugu jiro oo hilibkooda isku jirana ma ahan ma garateen marka ilaahay ka baqida marka hadii qofka ilaahay ka baqida ay ku yar tahay oo maxaan ku raahdaa uu kibro aan horan ogaa wadankii ka joogan waa ogaa naagaha Soomaalida ah kuwa ma sheegayo iyagoo dhan ma sheegay laakiin qaarkood wallahi tan wiilasha dhasha iyo tan gabdhaha dhasha way kala kibir badnaayeen tan wiilasha dhasha waxa moodaa in la yiriba nabi qadar iyo nabi ibraahim baa dhashay in la yiraahdo moodaaba waxaana dhashay saaqidiinta wadankii aabayaashood burburiyeen baa dhashay maxaan ku raahdaa ilaahay baa ku siiyay wiil iyo gabar wixii ilaahay ku hagaajinayo maxaan ku raahdaa ilaahay xaqiisa taala laakiin inaad kibirtid wiil baan dhalayo nin baa igu jeclaanaya ama waxaan doonaan sameyn karaa madaxba ah lama hadli karo maadaama wiil dhalay marka naagtan dambigeeda waa qiratay inay gabadh yartaa dishana way qiratay inay iyadu wax ku dhifatana way qiratay inay iyadu tacdiisana way qiratay waxaa kaloo jira arrin kale oo aan maxaan ku raahdaa ولنا social media aan la keenin oo waxa jiro gabadhaha qaar way ogyihiin laakiinse wali social media lama keenin oo gabadha yarta ku dhacay ay naagtaana sababteeda u leedahay inay gabadha disho laakiin maadaama social media la keenin anigana si bareefada la iigu sheegay muhiim ah in hadda inay sheeg laakiin maalinta social media la keeno waa war Soomaali og tahay maalinta social media la keeno ama gabadha maalinta la aasa noqoto ama naagta maalinta la maxkamadda la soo saaraya ha noqoto maalinta warkaas uu banaanka yimaado waa fadeexo waxa weeyaan Allahumma najayna reerkaas reer rugmada bay noqonayaan reer baaba ay bay noqonayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala
cuqubada naagtaas ee gashay ilmaheeda yararka ah ilaahay kama soo saaro ilmaha yararka ah oo sabiyiinta ah oo masaakiinta ah ee adduunka kusoo lugoysay ilaahay cuqubada iyada ay gashay iyo ninka ay la galayba ilaahay kama soo saaro ubadka yararka waayo nin aan ogeyn ma jirto qof guriga gabar gurigiisa joogto oo la tacdinayo inkastoo ragga Soomaali aan dhihi kara qaarkood inta badan guryahooda waxa ka dhaca iyo ilmahooda waxa ku dhaca maba ogaba waxaan kur duhurkii buu imaanayaa qadadiisa gooni waa loogu diyaarinayaa qaarkood waay waa qaarkoodna caruurtoodii la qadeeyaan laakiin inta badan nin Soomaali cuntada kuleysa loogu diyaarinaya kaligiisa halka cunteynaya gabadhaha guriga jooga maxaa la siiyay ma dhahayo ilmihii maxaa la siiyay ma dhahayo halkaas cuntadii intii nafaqadeeda lagu siinaya caloosh uma saas 5 bilood inuu uura leeyahay moodaa caloosh waa ka horeysa war uma hayo habeenkii ilmihii dadkii wada hurdo imaanaya wuu seexana subaxii wuu kala haya warba adduun ma hayaba gurina ma joogo shaqo gurina shaqo kuma laha guri hoos loo fiirina shaqo kuma laha marka aan rag Soomaali waxaan oran lahaa gurihiina hoos u fiiriyo gurihiina waxa ku jira qurunka gurihiina ku jira iyo awlaada masaakiinta gurihiina lagu ciqaabaya guriga ininka ka mas'uul ah gurihiina hoos u fiiriya dumarkana shalna waa in la dardaar maanta waa in la dardaarmaya gabdhaha masaakiinta oo in soo baday oo maxaan ku yiraahdaa rajooyinka ah agoonta ah war xataa haday aabii hooyin hadiina kursan karin hooyada aabada waxa ku tiraa waa anoo ilmihiina ma korin kare haysta labada maalmood ee yani shaqada ay ku shaqeynaysan waa rabtaa inay ku shaqeyso inaad tacadisina waa rabtaa ma soconayso ha ku shaqeyso dhaqaaleysa gabadh yarta ah maxaan wax barasho gee iskoolka iyo dugsiga gee hana ku caawiso hadilno ha tacadiina ilaahay ku awoorto uga baqa waa la dhimanayaa haddaad hayn karin oo dadkeeda ay joogaan dadkeeda si hooyada aabaheed si ama agoonta iyo rajada waxa kaliya waxa weeyaan adduuna lagu barakoobo aakhirada janno lagu galo waxa weeyaan agoonta iyo rajada hadii aad daryeeshaan oo maaragtay la daryeelo ilaahay marka aan uga baqno intaasa maxaan ku raahdaa rab inaan inaga dabageeyo gabdhahaygii aad u mahadsantiin fiidiyoga meel fog ka tuura insha Allah hadda wixii ka dambeeya dis wax kale noo imaan programkeena dib ugu soo noqon doona dhaqaalaha hore u socon doona iyo soo duceeyo culayskana ilaahay iga qaado aan shaqada sideeta ugu soo noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah